Jen ayaa hore u soo istaagay isagoo qirtay inuu gebi ahaanba si khaldan u qiimeeyey dabeecadda ninka ay tartamaan. Xilli nidaamkiisu uu bilaabay beddelidda fankiisa, wuxuu Gong Ting u xusuusiyey inaysan ahayn isaga oo keliya kan ku raacay dagaalka. Isagoo si buuxda u beddelaya fankiisa heerka 24aad ee dilka hilaaca, Jen wuxuu yeeray seef dhalaalaysa oo ka kooban koronto dahabi ah. Isagoo ku hareeraysan boyga wuxuushkiisa iyo tamarta baan ee maamulaha rasmiga ah, Jen wuxuu hagay hilaaciisa dahabiga ah wuxuuna si hubaal ah u dhawaaqay inuu leeyahay umush. Isagoo dhiig badan ka socdo, Gong Ting wuxuu si degdeg ah u khilaafay fikradda ah. Gong Ting wuxuu Jen uga digay in awoodda maamulaha rasmiga ah ay ku jirto heer kasta oo ka duwan, isagoo ku qiyaasay in wuxushkani uu yahay ugu yaraan heerkab ama xitaa heerka isagoo dareensan khatarta baan. Wuxuu si degdeg ah Jen ugu sheegay inuu qaado imtixaan qaadayaasha miyirka la oo uu cararo, isagoo ku adkaynaya in cararku yahay doorashada keliya ee u furan. Sato wuxuu ku raacay in wuxushku yahay riyo cabsi leh, laakiin wuxuu tilmaamay dhibaatada weyn ee qorshahaas ka dhalanaysa maadaama albaabadii godka ay si buuxda u xirnaadeen. Wuxuu u sharaxay in haddii jidka loo maro bixitaanka uu furaan lahaa, kooxaha gurmadka ee boqortooyada ay mar horeba soo dhex geli lahaayeen si ay u badbaadiyaan. Gong Ting ayaa gebi ahaanba la yaabay markii uu dhuuxay in ay ku dhex godoonsan yihiin gudaha. Jen wuxuu si dhow u daawanayay maamulaha aamusan, isagoo isku dayaya inuu xalliyo xaaladan halista ah. Wuxuu maankiisa ku darsay in haddii makhluuqu uu dhab ahaan yahay heerka, awooddiisa dagaal ay aad uga dhowdahay boqorkii libaaxa ee uu kula dagaalamay munaaradii cabsida. Si kedis ah, kooxdii wuxuushku waxay bilowdeen weerar. Makhluuq tuganaya oo shaydaan ah ayaa kor u soo booday, laakiin Jen wuxuu si fudud ugu leexiyey seeftiisa fiiqan ee hilaaca leh. Makhluuq kale oo cayayaan ah ayaa ka soo duulay meel sare, kaas oo keenay in Gong Ting uu argagaxo oo uu Jen ugu qayliyo inuu taxadaro. Ka hor int uusan wuxushku soo doonin dharbaaxo, Jen iyo Gong Ting waxay si wada jir ah u leexiyeen seefahooda dhalaalaya, iyagoo mid kasta oo ka mid ah uu hal ilbiriqsi gudaheeda ku gooyey makhluuqii soo weeraray. Dhowr daqiiqadood kadib, boy weyn oo cayayaan ah ayaa berkanayay iyagoo si toos ah ugu soo duulay dhankooda. Isagoo qabsanaya laabtiisa dhiigga ka buuxo, Gong Ting wuxuu calashaday ilkahiisa, isagoo ogaaday in marka loo eego tirada badan ee wuxuushkan soo weeraraya ay tahay keliya arrin wakhti ka hor int aysan si buuxda u babaaqin. Isagoo aan u jidin fursadaha yar, Jen wuxuu maankiisa ku ururiyey tamartiisa. Isagoo adeegsanaya fankiisa gaarka ah ee hilaaca, wuxuu gacantiisa ku sameeyey dhowr seefood oo koronto ah. Dhaqdhaqaaq degdeg ah wuxuu u soo droosay mawjad hilaac dahabi ah oo boy ah, kaas oo si toos ah u dhex maray dhowr makhluuq oo soo weerarayay. Isagoo halkaas ku joogsanayn, wuxuu kiciyey xirfadiisa xawaaraha rabbaaniga ah, isagoo ku socda xawaare aan la rumaysan karin, wuxuu si toos ah ugu dhex orday boyga wuxuushku ka kooban yahay, isagoo si fudud uga jaray madaxyada makhluuqaad badan hal orod oo qura. Gong Ting wuxuu daawanayay muujintan mucjisada ah ee awoodda ah, isagoo gebi ahaanba la yaaban, isagoo u qaatay inay tahay wax aan suurtogal ahayn. Wuxuu ogaaday in fanka dilka gaarka ah uu dabiici ahaan leeyahay awood misay gaar ah oo aad u hoosaysa, taas oo ka dhigaysa kuwa aan waxba ka tarayn marka loo eego kooxaha waaweyn ee cadowga ah. Si kastaba ha eege, wuxuu daawanayay sida Jen uu si toos ah uga fowday dharbaaxo culus oo seefta wuxushka ah. Gong Ting wuxuu markaas ogaaday in mid kasta oo ka mid ah weerarada Jen uu si toos ah uga dhacayay meelaha ugu jilicsan ee cadowga. Wuxuu ogaaday in Jen uu si buuxda u buuxinayo awoodda hoosaysa ee fankiisa isagoo adeegsanaya xawaare baan iyo xirfad buuxda. Isagoo eegaya hooska xawaaraha Jen, Gong Ting wuxuu la yaabay xawaaraha baan ee uu ku socdo. Markii Jen uu baabiiyey makhluuqaadkii dhimay isagoo adeegsanaya xawaaraha hilaaca, Gong Ting wuxuu maankiisa ku ogaaday in xawaaraha ninka la tartamayay uu si fudud ku joogo heerka ama xitaa ka sareeyo. Isagoo dhiirigelin ka helay xirfadda cajiibka ah ee Jen, Gong Ting wuxuu si adag u qabtay seeftiisa dhalaalaysa, isagoo helay tamar cusub, isagoo ogaaday inay dhab ahaan ka baabi'i karaan dagaalkan. Isagoo ka cadhooday adkaysiga ay muujiyeen, maamulaha rasmiga ah wuxuu go'aansaday inuu soo dhex galo. Wuxuu ururiyey mawjad weyn oo tamar casaan madow ah, isagoo bilaabay kororsi awood oo baan. Tamarta madow waxay ku shumatay cayayaankii dhimay, iyadoo si buuxda u kordhisay awooddooda iyo tamartooda. Maamulaha wuxuu si cadho leh ugu amray boygii awoodda cusub helay inay Jen u kala jaraan qaybo yaryar oo degdeg ah. Jen wuxuu u istaagay diyaar, isagoo seefahiisa korontada leh ay si adag u dhalaalayaan. Mid ka mid ah cayayaankii awoodda helay ayaa isku dayay inuu burburiyo, laakiin Jen wuxuu si fudud uga booday weerarkiisa, wuxuuna makhluuqii u kala jaray qaybo yaryar hawada dhexdeeda. Isagoo daawanaya dagaalka oo sii baanaya, Gong Ting oo cadhooday ayaa yidhi, isagoo u sheegay Jen inuu si kooban u joogo xilli uu isna seeftiisa diyaarsanayay. Jen wuxuu naftiisa gaarsiisay heerkiisa ugu sarreeyey, isagoo soo daayay duufaan aan kala joogsi lahayn oo hilaac dahabi ah si uu uga hortago boyga awoodda baan helay. Si kedis ah, makhluuq cayayaan ah ayaa ka soo muuqday dhabarkiisa. Isagoo ka duulaya xawaarahiisa aan la rumaysan karin, Jen wuxuu waayay ilbiriqsi gudaheeda si uu uga fowdo weerarka halista ah. Wuxuu dib u soo muuqday isagoo islamarkiiba uga jawaabay duufaan weerar oo dhow, laakiin weeraradiisu waxay fashilmeen inay dhex maraan hubka cusub oo adag ee makhluuqa.
cayayaankii cadhooday wuxuu kaga jawaabay dharbaaxo culus. Jen wuxuu leexiyey weerarkii, laakiin waxaa dib u bushasgareeyey awoodda baan ee dharbaaxada. Isagoo si culus u neefsanaya, wuxuu ogaaday in kororsiga awoodda ee maamulaha uu ka dhigay mid kasta oo ka mid ah makhluuqaadkan inay ka kooban yihiin heerkab. Wuxuu ogaaday in qolofkoodu uu adkaaday sida iron oo kale, taas oo ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn in si fudud loo muddo meelahooda jilicsan. Si taasi ka duwan, wuxuu ogaaday inay u baahan yihiin hab ay gebi ahaanba ku burburiyaan hubkan marka ugu horraysa. dhabarkiisa Gong Ting wuxuu kaga mahadceliyey qaylo, isagoo ogaaday in Jen uu ka siiyey wakhtigii uu u baahnaa. Isagoo ka tegay xawaarihiisa, adkaysigiisa iyo maamulka tamarta iyadoo aan wax hesitation ah jirin, wuxuu ku shubay tamar kasta oo u dhimatay awood hubaal ah. Holac culus ayaa ka dhaladay seeftiisa oo u dilaacay sida boydab ah. Waxay kaga cudur daaratay inay ku raagtay soo iibinta cabitaanka. Gabadha oo uu garbaha ku fadhiyo Leo waxay u sheegtay inaysan walwalin maadaama walaalkeed uusan weli soo laaban. Waxay la yaabtay markii ay ka dhawaysay inuu weli ku jiro bannaanka. Waxay weydiisay haddii walaalkeed uu og yahay inay ku guulaysatay imtixaanaadkii kuliyadda fanka. Waxay ugu jawaabtay inaysan weli u sheegin, laakiin ay ku tiri inuu jiro waddo cusub oo ay la wadaagi doonto. Isagoo u qaatay inuu keliya daahay, waxay soo borobosay inay bilaabaan isaga oo aan joogin. Isla mar ahaantaana waxay kor u qaaday dhalo eber ah, waxayna ogaatay inuu ka dhammaystay suugadii toonta ahayde. Waxay u sheegtay inay ku sugto guriga xilli ay isaga iyo Leo run degdeg ah ku samaynayaan dukaanka. Waxay ku dartay inay soo iibin doonto cunto xilligaas ah si ay si habboon u dabaaldegaan. Wax yar kadib waxay dhammaysatay iibkeeda dukaanka xaafadda waxayna u laabatay bannaanka. Xilli ay socdeen, Leo wuxuu si farxad leh u cunayay cunto isagoo ku dhuumanaya boorsadeeda dhabarka. Waxay si diilis leh kaga mahadcelisay ilmaha yar isagoo noqday nooc wanaagsan, waxayna u ballan qaaday inay u soo iibin doonto buskud marka xiga. Gudaha luuq ka dhow, nin iyo saaxiibkiis oo buste gashan ayaa daawanaya gabadha. Isagoo gacanta ku haya sawirkeeda, wuxuu nooca xiriirka fogaanta ku wargeliyey inay heleen bartilmaameedkii, wuxuuna weydiiyey inay weeraraan iyo in kale. Cod ka soo yeeray xiriirka ayaa amray inuu sugo oo uu ka daba tago ilaa ay ka baxayso goobta ay ka muuqdaan kamaradaha waddada. Ninkii wuu xaqiijiyey amarka, wuxuuna sii waday kormeerka. Xilli ay guriga u sii socoto, shanqadha tillaabooyin culus ayaa si dhow uga daba maqmaysay. Waxay isweydiisay waxa ay dhab ahaan ka doonayaan. Isagoo ku dhuumanaya boorsadeeda dhabarka, Leo wuxuu soo daayay gundhac digniin ah. Si hiinso leh ayay u qabatay, waxayna weydiisay ilmaha yar haddii uu isna dareemayo halista. Waxay si hoose ugu sheegtay inuu gudaha ku dhuunto. Isagoo dib u eegaya kuwa ka daba socda oo leh muuq dhalaal badan oo dhiiran, waxay si degan u tiri in habeenkeedu uu hadda noqday mid xiiso leh. Dhuuxa hoose ee godka, Jen oo si culus u neefsanaya wuxuu ogaaday in tamarta madow ee maamulaha wuxushka ay boyga cayayaanka u guurisay heer halis oo aad u sarreeya. Isagoo eegaya in qolofkoodu uu adkaaday sida birta, wuxuu ogaaday inuusan si fudud dib ugu goyn karin. Wuxuu dhuuxay inuu u baahan yahay hab uu marka ugu horraysa ku baabi'iyo hubkooda. Isla mar ahaantaana, Gong Ting wuxuu si qaylo ah kaga mahadceliyey Jen, isagoo u sheegay inuu siiyey wakhti ku filan. Isagoo ka tegay xawaarihiisa iyo tamartiisa, Gong Ting wuxuu dhammaan awooddiisa u dhimatay u beddelay xoog hubaal ah, wuxuuna u dilaacay sida boy dab ah oo weyn. Isagoo awooddiisu ay joogto heerkeeda ugu sarreeya, indhihiisuna ay dhalaalayaan, Gong Ting oo cadhooday ayaa dhawaaqay weerarkiisa ugu dambeeya. Isagoo seeftiisa gubaysa laabuya, wuxuu soo daayay mawjad weyn oo dab ah, isagoo ku dhawaaqay inuu wuxushka u beddeli doono dambas, si kasta oo uu adag yahay. Weerarkii culus ee dabka ahaa wuxuu ku dhacay boygii soo weerarayay, isagoo gubay makhluuqaadkii cayayaanka ahaa. Isagoo si toos ah u dhex maray cadowga, seeftii weynayd ee dabka waxay ku dhacday maamulihii degganaa ee sugayay. Weerarku wuxuu dhashay qarax baan, isagoo wuxuskii ku qabtay dabin dab oo weyn. Isagoo wax yar ka koraya istaaga, Gong Ting wuxuu ku dhacay jilbihiisa isagoo si adag uga soo dhiibanaya seeftiisa. Wuxuu ogaaday in tamarta dabiiciga ah iyo fankiisa ay gebi ahaanba baaba'een. Isagoo dhididka ka tiraya wejigiisa, Gong Ting oo daalan wuxuu soo daayay neef nafis ah. Markii holecii uu baabay oo ay muuqdeen wixii ka dhimay boygii gubtay, wuxuu si hubaal ah u yidhi dagaalku ugu dambayn uu dhaday. Si kastaba ha ahaatee, qosol naxariis la'aan ah ayaa ka soo yeeray gudaha dabka sii baabaya. Maamulihii wuxushka ayaa u yeeray, isagoo ku waaday oo weydiiyey haddii taasi ay dhab ahaan tahay inta ay ka awoodaan. Gong Ting wuxuu kaga joogsaday naxdin baan, halka Jen uu si degan uga eegay dhanka codka ka soo yeeray. Ufadii waxay muujisay maamulaha oo gebi ahaanba aan waxba ka gaarin, isagoo ku dhex goon gaashaan cagaaran oo dhalaalaya. Makhluuqu wuxuu si qabow ugu soo droosay oo uu weerarkooda ku tilmaamay mid hooseeya. Cabsida buuxda waxay dabooltay wejiga Gong Ting. Wuxuu waayay dhammaan rajadiisii, isagoo ogaaday inuu adeegsaday dhibic kasta oo awooddiisa ah, laakiin uu ku fashilmay inuu xitaa hal nabar u yeelo makhluuqa. Isagoo gebi ahaanba akim ah, Jen wuxuu si dhow u darsay difaaca cadowga.
wuxuu dhuuxay in ka hor int uusan weerarkii dabka ku dhacin maamulaha uu awoodda ka soo saaray ukumihii wuxuushkiisa ee dhimay si uu u dhijaamo gaashaan adag oo ka hortegi kara wax kasta. Isagoo nafiisa ka baxay, Gong Ting oo laga guulaystay wuxuu si culus u neefsanayay. Wuxuu waayay rajadiisii wuxuuna isweydiiyey haddii tani ay tahay habka ay u dhiman doonaan. Isagoo ka dhaafaya Gong Ting oo jabay, Jen wuxuu u soo droosay heshiis. Isagoo bilaabaya inuu beddelo fankiisa dagaalka, wuxuu Gong Ting u koobay inuu qaato kaalinta koowaad ee imtixaanka, laakiin keliya haddii Jen uu helayo dhammaan abaalmarinta lacagta ah. Wuxuu ku daray hal xeer oo adag, Gong Ting waa inuusan weligiis hal erey ka dhihin waxa uu dhowaan daawan doono. Isagoo yeeraya seeftiisa dhalaalaysa, Jen wuxuu si buuxda u beddelay fankiisa qarsoodiga ah ee jinniyada. Gong Ting wuxuu daawanayay isagoo la yaaban, isagoo naxsan markii uu ogaaday in ninka ay tartamaan uu dhab ahaan leeyahay laba fannood oo dagaal oo ka duwan. Wax digniin ah oo aan jirin, mawjado tamar casaan madow ah ayaa bilowday inay si baan uga soo baxaan meydadka makhluuqaadkii dhimay. Wuxuu kiciyey xirfad gaar ah oo awoodda iyo tamarta ka soo saarta meydadka dhow, iyadoo si toos ah u beddelaysa awooddiisa rasmiga ah. Boy weyn oo tamar casaan ah ayaa ka dhaladay Jen xilli heerka awooddiisu ay si degdeg ah ugu duushay meelo sare oo cusub. Isagoo wejigiisa ka duubaya dabaysha xooggan, Gong Ting wuxuu daawanayay muujintan cajiibka ah ee awoodda ah isagoo naxsan. Xitaa maamulihii wuxushka ayaa joogsaday isagoo si aamusan ugu soo droosay wiilka. Isagoo neefso ka soo daayay ilkahiisa fiiqan, Jen wuxuu dareemay in awooddiisa iyo adkaysigiisu ay gaareen heerka ugu sarreeya. Isagoo ku dhalaalaya tamar madow oo jinni ah, wuxuu si hubaal ah u dib uga dhawaaqay ku dhawaaqistiisii hore. Wuxuu keligiis tijaami doonaa wuxushka. Maamulaha wuxushka wuxuu sameeyey dhaqdhaqaaqiisa xiga isagoo soo daayay awoodda maanka ee maamulka. Mawjad tamar ah ayaa ka soo dhalatay gaashaanka cagaaran ee dhalaalaya, iyadoo godka dhexdiisa ku shubtay awood baan oo maanka ah. Weerarkii maanka wuxuu si toos ah u dhuuxay Gong Ting. Isagoo dhiig leeyahay oo daalan, wuxuu qabtay madaxiisa isagoo xanuunsanaya, isagoo caynaya maamulka maanka oo mar kale maankiisa ku dhuuxaya. Jen oo si buuxda u beddelmay haba yaraatee ma saamaynin. Maamulihii wuxushka wuxuu ku joogsaday naxdin markii Jen uu bilaabay inuu dhankiisa u tilado isagoo seeftiisa weyn ka taagaya garabkiisa. Isagoo jahawareersan, makhluuqu wuxuu si adag u weydiiyey sababta fankiisa maanku uusan wax saamayn ah ugu yeelanaynin. Isagoo doonaya inuu si degdeg ah u dhijo, maamulaha wuxushka wuxuu soo daayay mawjad dhawaaq ah oo baan, iyadoo ufadii ay dhiitay godka dhexdiisa. Awoodda baan waxay dhilkeeda ku kashay godka, laakiin Jen wuxuu ku taagnaa booskiisa halka Gong Ting uu ku jabayay cadaadiska isagoo xanuun kaga qaylinaya. Maamulaha wuxushka wuxuu indhihiisa ku kashay wiilka. Jen wuxuu si toos ah kaga soo eegay, indhihiisa oo dhalaalaya. Wuxuu qaaday tilaabo hore wuxuuna sii waday socodka, isagoo toos u abbaaraya wuxushka gaashaanida ku jira. Cabsida buuxda waxay ku dhacday maamulaha wuxushka. Wuxuu bilaabay inuu hakado isagoo fahmi waayey sida weerarkiisu uusan waxba uga qaadin. Maamulaha wuxushka wuxuu amray uumihiisa inay Jen u adhiidhaan kaalmo, iyadoo masmadow oo weyn uu u soo dilaacay dhankiisa. Jen wuxuu si adag u qabatay seeftiisa dhalaalaysa, isagoo hal weerar oo baan ku laba boqoy ee madaxii malka. Makhluuqu wuxuu ku dhacay dhulka. Dhowr mas oo kale oo waaweyn ayaa ka soo weeraray ka sare. Isagoo itaal ka qabta, wuxuu seeftiisa ku laabay goobo caddayn ah, isagoo hal go'aan ku dhigay labadooda madax. Isagoo jidkiisu uu bannaan yahay, Jen wuxuu toos u dhiitay dhanka maamulaha. Wuxushka ayaa qoslay, isagoo dhawaaqay in gaahaankiisa aan weligeed la baabiin karin. Jen wuxuu weydiiyey haddii taasi ay tahay dhab, wuxuuna u duulay sare, isagoo seefkiisa ku aadiyey ka sare gaahaanka dhalaalaya. Wuxuu ka soo saaray awoodda ka dhimatay meydadka wuxushyada dhow si uu u quudiyo awooddiisa rasmiga ah. Jen wuxuu soo daayay qaylo baan. Wuxuu seeftiisa u hoos dhigay dhammaan awoodda uu leeyahay, iyadoo gaahaankii uu kaalmo u baabiyey. Maamulaha wuxushka wuxuu daawanayay isagoo la yaaban. Gong Ting wuxuu fahmi waayey sida ay tani u dhacday, ninka ay tartamaan wuxuu gaahaankii ku baabiyey hal weerar oo keliya. Jen wuxuu dhulka ku tuuray hubkiisa wuxuuna guntigiisa ku cufay awood dhalaalaysa. Nidaamku wuxuu xaqiijiyey kicitanka xirfadda baan ee guntiga. Wuxuu guntigiisa si toos ah uga dhuuxay codka maamulaha wuxushka, isagoo ku baabiyey awood baan. Guntigu wuxuu maamulaha ku tuuray dhulka. Xilli ufeydii ay ka baxday godka, maamulaha oo u beddelmay boy madow oo dhimanaya ayaa si hoose u yidhi, keliya eber ayaa ka dhiman. Isagoo ka taagan maamulaha jabay, Jen wuxuu amray inuu hadlo. Wuxuu doonayay inuu ogaado xiriirka uu leeyahay urad. Maamulaha wuxushka wuxuu noqday mid naxsan, isagoo weydiiyey sida aadame uu ku ogaan karo magaca urad. Jen wuxuu codsaday jawaab hubaal ah. Makhluuqu wuxuu ugu jawaabay in haddii uu ogaan lahaa meesha uu joogo boqorka jinniyada, uusan ku daali lahayn godkan halkay ahayd inuu ka baabi'iyo shaabadiisa. Jen wuu joogsaday. Natiijada ayaa si toos ah uga dhacday maankiisa, intii uu joogay muddo hore, in kasta oo dunidan ku nool wuxuu ku guulaystay inuu shaabadeeyo urad. Maamulaha wuxushka wuxuu u dilaacay qosol, isagoo hoos ka xariiqay in urad uu mar kale kici doono.
wuxuu ballan qaaday in boqorka jinniyada uu dib u soo doonan doono ciidamadiisa wuxuuna go'aan ku dhigi doonaa aadame kasta ilaa lafaha. codka maamulaha wuxushka wuu sundhay wuxuuna ku dhex baaba'ay heeraa. jen wuxuu u soo droosay gacanta xilli nidaamku uu kicitamay isagoo dhuuxaya tamarta cagaaran ee wuxushka. nidaamku wuxuu xaqiijiyey dhuuxa isagoo jen siiyey fan gargaar ah oo leh awoodda maanka iyo gaahaanka maamulaha. isagoo darsaya fankiisa cusub jen wuxuu sibiqda ku connect gareeyey dhammaan xaqiiqooyinka. warad keligiis kama soo muuqan meel eber ah wakhtiga soo socda. boqorka jinniyada wuxuu ku dhex gonaa dunidooda muddo dheer ka hor inta uusan weerarku bilaaban. dhaqdhaqaaq weyn oo qarsoodi ah ayaa dhacay wakhtigii hore si loo shaabadeeyo jenna waxba kama ogayn taasi. fikirkiisu wuu baaba'ay markii uu ogaaday Gong Ting oo dhankiisa u soo tiladay isagoo lugta la jiifaya. isagoo dhilkeeda ka leexday oo dhiig ka soo dhacayo Gong Ting wuxuu qirtay inuusan weligiis filaynin inuu dagaal kaga hortago ayn leh 2 fannood oo dagaal. wuxuu hubaal ka dhigay in jen uu joogo heer kale wuxuuna u qirtay inuu yahay guulaystaha dagaalkooda. Gong Ting wuxuu ballan qaaday in qarsoodiga jen uu yahay mid doobiyey isagoo sheegay in dhammaan waxa uu maanta daawaday uu ula tiladi doono qabriga. awooddiisii ayaa ka dhammaysatay. wuxuu ka soo daayay dhiig kale wuxuuna ku dhacay derbiga godka. jen wuxuu u sheegay inuu itaal ka qabto. maadaama maamulihii uu dhimay marinka godku mar kale wuu furmi doonaa waxaana si degdeg ah u soo geli doona kooxda badbaadada. kadib jen wuu joogsaday. xirfaddiisa qarsoodiga ah ayaa kicitamtay iyadoo maankiisa ku shubtay digniin baan. nidaamku wuxuu si toos ah u tusaalay muujin la wadaago isagoo muujinaya waxa makhluuqiisa dabiiciga ah leo uu daawanayo nin cadow ah oo ka soo daayay tamar madow oo xun. jen wuxuu dhuuxay meesha uu joogo leo wuxuuna si qaylo ah uga dhawaaqay magaca walaashiis. xiriirka maanka wuxuu muujiyey kani oo leh indho cagaaran oo dhalaalaya isagoo amrayay gacan qaad madow. ninku wuxuu ku baabiinayay gabadha naxsan ee leo ku qabatay xalkeeda iyadoo ilmaha yar ka doobiyey gacmaha soo tiladay. halkan ayay xalqadeeni ku dhammaatay asxaabta waxa aan idiin sheegaya in xalay 3 video copyright linagaga qabtay. waxa kale oo aan idiin xasuusinayaa in aad subscribe channel ka tidhaahdaan videogana like inoo saara wixii su'aalo ahna kommentiga iigu soo qora wad mahadsantihiin.